caqligaagu waa mashiinka noloshaada hagaya. haddii sida hijiinka gaadhiga oo kale aadan badqabkiisa u ilaalinna wuu duqaynayaa. ilaalinta badqabkiisana waxaa ka mid a sida hijiinka gaadhigaba saliidihiisa iyo waxyaabaha uu u baahan yahay aad ugu dhammayskatirto, in caqligaagana waxyaabaha uu u baahan yahay aad u dhammaystirto, waxyaabaha dhibka ku ana aad ka ilaaliso. haddii laakiin sida badiba maanta aynu u dhaqanno qaabkaad caqligaaga ula dhaqmaysa ay noqoto ha iska socoto oo aadan wax danayna siinin, sidii gaadhi aad safar masaafo 1,000 kilomitir ku gelayso oo aadan saliidihiisa iyo shidaalkiisa iyo biyihiisa iyo arrimaha la xidhiidha gaadhiga iyo weliba si gaara kuwa ula sii xidhiidha hijiinka aadan hubinin ee safarkaas dheer iyo kuleylka gaadhigaas uu la kulmayo kadib uu hijiinku kaaga dhaawacmayo, si lamid ayuu caqligaaguna u dhaawacmaya. sida uu hijiinkaas u duqaynayo ayuu caqligaaguna u duqaynaya. ha ahaato duqayntaasi mooganaan iyo dhoohnaan, iyo inaad warjira moog noqoto oo nolol yaro korkaxaadiisa aad ku noolaato, ama mid xanuuno nafsi ah iyo mid jismi ahba ku horseeda waxaynu barnaamijkan kusoo qaadanaynaa 9 qodob oo badqabka iyo fayada caqligaaga dhibaato ku ah, ayna mahuraan tahay inaad dadaal weyn ku bixiso sidii aad isaga dabar jari lahayd ama ugu yaraan aad u yarayn lahayd. kusoo dhawaada. caadada koowaad waa inaad isticmaalka saayidka ee tiknoolajiyadda yarayso. badanka marka tiknoolajiyadda laga hadlayo meelaha sida gaarka loo tilmaamo waxaa ka mid a inay indhaha u daran tahay oo moobilka waa aynu wakhti badan ku foorarnaa, weliba habeenkiina aynu qol mugdiya la gallaa uu indhaheena dhaawac u geysanayo. waa run oo way dhacdaa taasi, laakiin waxaa badanka la ilaawaa in isticmaalka saayidka ee tiknoolajiyaddu ay qayb weyn ka tahay hoos u dhaca wacyiga haddii aadan dhanka wacyiga ka adeegsanayn. oo markaad baraha bulshada soo gasho haddii keliya in yaro qosol iyo majaajilo iyo xaraabo iyo 2 qof oo ismaagay iyo inta xun ee badanka maanta baraha bulshada Soomaalida taalo aad ku mashquusho, wacyigaaga iyo ogaalkaaga iyo xataa xogogaalnimadaada iyo dhismahaaga shakhsiga ah midna uma wanaagsana. oo waxaad noqonaysaa qof nolosha qayb yaro korkaxaadiisa kaga nool, caqligaaguna wuxuu noqonayaa caqli u rahman nolosha inta yasiran ee aan macnaha badan lahayn amaba yasan ee liidata. oo markaad marar badan daawato macluumaad liita, xogo liita ay ku soo gaadhaan, garaadkaaga waxaa caadi la noqonaysa liidashada. wax liita inay dhici karaan ayaa caadi la noqonaysa. marba haddii garaadkaagii liidashadu ay caadi la noqotayna noloshaada kale iyo dabcigaaga oo dhan liidashadaasi way dhex gelaysaa, maadaama caqligu uu yahay hijiinka gaadhiga nolosheennu uu ku shaqeeyo. waxay sidoo kale galaafanaysaa tiknoolajiyaddaasi wakhtigii aad maalgashiga nafsadeed ku samayn lahayd. ma aha ujeedku inaad ka tanaasusho tiknoolajiyadda oo suura maba aha, oo maanta ma jirto cid ku odhanaysa moobilka dhig ama ha isticmaalin ama moobilka iska daa, ee qodobka muhiimadda gaarkaa kuu lihi waa inaad dhankeeda wanaagsan u badato. xataa marar fara badan kama badbaadi kartid oo kama baxsan kartid in tiknoolajiyadda qayb liidata ay kaaga soo hagaagto, ama xogaha inaan macno badan lahayn amaba kuu daran ay kaaga soo hagaagaan. laakiin haddana saasoo ay tahay, mar kasta oo aad dhanka wanaagga, wax kororsiga, aqoon kororsiga, xog kororsiga iyo ku xidhnaanta dadka waxa waxtar kale soo daaya ka ag dhawaato, waa mar kasta oo badqabka caqligaaga aad ilaashato. heerka maanta tiknoolajiyaddu ay gaadhsiisay bulshada Soomaaliyeed waxaynu maraynaa marxalad khaniisnimadii iyo qoomaluudnimadii ay dhexdeena ka noqotay shay dabiiciya oo lagu kaftamo. marka la arko qof nin lagu sheegayo oo fidradiisu banaa ka leexday oo dhankaas baas ku biiray, iyadoo aan la falanqayn dhaqankan, iyadoo aan la falanqayn diinteenu halkay ka taagan tahay, iyadoo aan la falanqayn dhibaatada uu ummadda iyo adduunkaba ku hayo, iyada oo aan dhinac kale haba yaraatay laga eegin, iyadoo aan la eegin saamaynta uu qofkana ku yeelanayo carruurteena yareer ee TikTok ka buuxda, markiiba su-aasha kubadda la isweydiinaya waxa weeyaan waa qolama qofkani. marka qoladiisa la ogaadana reer baa dusha loo saaraya. waa ilaa heerka tiknoolajiyaddu ina gaadhsiisay in aynu liidashada aqballo ama liidashada aynu ka dhigannaba shay dabiiciya oo qaarkeenna ay ka bariiseeyaan, inta kalena ay qosol ka dhigtaan. caadada labaad ee caqligaaga aadka ugu wanaagsani waa jimicsiga. ma aha jimicsigaasi inaad jir dhiibsan yeelato uun, ee jir ahaan iyo nafsad ahaanba waa kuwa caafimaad oo qofka uu dhanka jiimka uga dhow yahay. haddii aanu ahayn qof marka horeba maran oo jirkiisaasun inuu adduunka ku maro doonaya, ee uu yahay qof xoogaa haya, wacyigiisu yara dhisan yahay, weliba inuu isdhisana diyaar u ah, oo ah dadka marka ay ku jiraan jiimka boodkaastyada iyo macluumaadka iyo xogaha ku dhegaysta. markaa tahay qof noocaasa caqligaagu uu kobcaya. oo waxaa jirta mursi tidhaahda caqliga fayowe waxa uu ku jiraa jidhka fayow ee caafimaadka qaba. sidoo kale jimicsigaasi nafsad ahaan iyo jir ahaanba waxa uu ku horseedayaa kalsooni iyo isku kalsoonaan nafsadeed. ujeedka jimicsigaas wada socda ee jirka iyo caqligu ma aha inaad cid ku soo jeedato ama aad dadka qaar si gaara ula muuqato, ee waa inaad adigu is ahaato, naftaada aad ahaato, sidii ilaahay ku abuuray aad ahaato, adduunkana wax badan aad ka kororsato xog iyo cilmi iyo macluumaad bale.
caadada saddexaad waa iska yaraynta sonkorta. ka Soomaali ahaan sonkorta baasha la yiraahdo dhibaato weyn baa uma aragno oo waxaad moodaa dabcigaasi inuu caruurnimadeennii naga soo raacay xilligii sonkorta laynaga qarin jiray ee joogaga laynaga qafili jiray. laga yaabaa markaad miyiga joogto sonkortu inaanay saameyn kugu yeelan oo maqaaxiyaha miyiga markaad soo gasho koobka shaaha waxaa laga yaabaa kala badh wax ku dhow inay sonkor yihiin, laakiin waa la lugaynayaa, waa la daalayaa, waa nolol rafaada. sonkortaasina badanka energy ayay noqotaa, laakiin markaad magaalooyinka joogto amaba qurbaha badanka hawlo badan ma qabanno, jirhkeenu si aada uma shaqeeyo, miyigii xoolaha la raacayay ee la rafaadiyey ma joogno. taasina waxay sababaysaa in sonkortaasi ay saameyn taban, weliba aad u taban, fayaqabkeenna jir ahaaneed iyo keena nafsad ahaaneedba ay ku yeelato. oo waxaa jirta murti tidhaahda waxa aad tahay hadba waxaad cunto. caadada afraad ee ay tahay inaad caqligaaga ka ilaalisaa waa hurdada oo kaa khalkhasha. inta la hurdo sida uu jirku dib u hagaajinta iyo ishagaajinta iyo isqaabaynta ugu jiro ee uu tamartiisii maalinkaa hore kasoo luntay dib ugu soo ceshanayo ee xubnaha qaar ay nasashada u helayaan, si la mid ah ayuu caqliguna nasasho ugu jiraa. oo adigan software ahaan shutdownka ah ee aan shaqaynaynin ee ruuxdiiba ay kaa maqan tahay, markaad hurdo kugu filan qaadato ama xilliyada ku habboon hurdada ee habeenkii aad seexatana waxa aad soo kacaysaa adigoo jir ahaan iyo caqli ahaanba fresh u ah, degan, xasilan, wax walbana qabsan karaya. jirkaaga iyo caqligaagana way wanaagsan tahay. qofba qofka uu ka hurdada wanaagsan yahayna wuu ka xasuus wanaagsan yahay, caqligiisuna wuu ka tayo badan yahay. xataa unugyada maskaxdiisu siday u shaqaynayaan way ka tayo badan yihiin qofka ay hurdada isku dhiban yihiin. caadada shanaad ee ay tahay inaad ka ilaaliso caqligaagu waa la noolaanshaha tagtadii. inaad tagtadii maxbuus u noqoto, dhibaatooyin iyo dhaawacyo tagtadii kaa soo gaadhay inay noloshaadan xaadirka ah taagantan iminka aad joogto ay u rahmanaato oo aad ciil iyo qoomamo la noolaato. tagtada in lagu dhex xabismo ama lagu dhex xidhmaana badanka qoomamo ayay u badan tahay. dhibaato ku soo martay oo aad gocanayso iyo wanaagyo aad hore u haysatay oo aad soo weyday ayay badanka ka dhaxaysaa, laakiin taasi haba yaraatee waxay kugu soo biirinaysaa ma jirto. caqli ahaan iyo jir ahaanna midna waxtar kuuma leh inaad waaqacaaga la noolaato, xaaladda ku hortaagan aad la falgasho, maalinkaa waxaa kugu soo aaday aad la noolaato ayaana si walba uga mudan inaad tagtadii horena ka qoomamayso. timaadada mustaqbalka ah iman doontana aad ka warwarto, oo haddii tagtadii wax badanoo kaa soo xumaaday ay jiraan taagantanba waad hagaajin kartaa. haddii ay yihiin waxyaabahan wax laga qaban karinna inaad ka qoomamayso ama aad kasii murugootaa waa un taagantaadan oo aad sidii tagtada u dayacayso. marka timaadada ay noqotana geedka timaadada aad goosan doontaa waa ka taagantaadan iminkaad joogto aad beeranayso. haddii aadan taagantaadan iminka beeran ee aad warwar sii gashana macnaheedu wax weeyaan mustaqbalkaas oo aadan marka la gaadhana waxa aad goosan doontaa uun waa warwarkaas iminkabaad ku sii jirto iyo isla warwarkan iminkaad ku jirto oo markaa qoomamaysu bedelaya. waa mahuraan inaad taagantaadan la noolaataa ee aadan tagtadii ku dhex xabismin, timaadadana aadan aad uga warwarini. caadada lixaad ee muhiimka ku ah ee ay tahay inaad caqligaaga ka ilaalisaa waa faquuqnaanta bulsheed. nolosha kugu xeeran dad iyo duunyaba casharo joogto ayay ku baraysaa, si joogto ayay noloshu macallinkuugu tahay. wax kastoo aad aragto, maqasho ama aad la kulantaa cashar nooca ayuu ku barayaa. aad adigu cashirka ka dhex aragtid ama yaadan ka dhex arkine, maalin walba caqligaagu uu kobacayaa, xogo ku cusub ayaad helaysaa. asal ahaanbana xoguhu waa waxaad aragto isha aad ku qabato iyo waxaad maqasho dhigta kaa soo gaadha. fidradeenna ayaana bulshaynimo ah. ka aadami ahaan waxaanu nahay noole bulshay ah, dhanka bulshadaad ugu janjeedha. wacyiga kugu xeeran iyo xaaladda bulshadaad ku dhex nooshahay inaad si fiisikaale oo la taaban karo ula xidhiidho oo aad ula falgashaa nafsi ahaan iyo jir ahaanba waa kuwo muhiim. oo inaad bulshada iska faquuqda waa inaad wax badan iyo waayo aragnimo badan isa siijinayso, xanuuno badan oo nafsi ahna aad gaar ugu baxayso oo ay si gaara ku ugaadhsanayaan. haddana inaad bulshada ku dhex jirto aad qof bulshaya noqotaa kama dhigna inaad noqoto sidii neef xoola ah oo xayn adhiga ka mida oo arigaasi halka uu dareero oo nula dareeraya ee adiga oo wacyigaaga iyo jaadgoonimadaada iyo sida uu Ilaahay ku abuuray ilaashanaya, haddana bulshay noqo oo dadkaaga ku dhex jira. caadada toddobaad ee ay tahay inaad caqligaaga ku tababartaa waa tijaabooyinka kugu cusub inaadan ka biqin. marka ay noqoto wax cusub inaad tijaabiso inaadan ka biqin inaad isku maqiiqdo oo rootiinka aad la qabsataa masaaxo raaxo ah ayuu kuu samaynayaa. markaad wax la qabsatay waxaas ay shay dabiici ku noqdaan aag raaxo ah oo aad nafisaad ku dareento kuu samaynayaa, laakiin noloshu nafisaadaas kuma jirayso ee marar badan waxaa mahuraan kuu noqonaya rootiinkaas inaad jabiso. nolosha meel lama taagnaado ee ama horu socod ayaad samaynaysaa ama hoos u dhac ayaa kugu socda. yacni maalin kasta oo aagaagaas raaxada aad ku qaadataa waa maalin kasta oo hoos u dhac uu kugu socdo maadaamadan horumar samaynayn. mana jiro adduunkan xaal sida uu yahay iska ahaada
oo weligiiba ku nagaada mar kastaba xaalad baa timaada ha wanaagsanaato ama ha xumaato kadibna xaaladaas horumarka aynu ka samayno iyo sida aynu hore ugaga soconno ee aynu ugu tallaabsanno ayaynu heerkeenan kasii sarreeya ku gaadhnaa haddaynu iyada la noolaanno ama bartaas inoogu timaynu soo dhaafi weynana xataa haddaynu halkaa taaganahay hoos u dhacba inagu socda mar walbana maanka ku hay inaadan khibrad helaynin haddii aadan wax tijaabinin caadada sideedaad ee ay tahay inaad iska ilaaliso si badqabka caqligaaga aad u ilaashataa waa inaadan ismooganaysiin dhibaatooyinka nafsi ahaan aad u dareemayso bini'aadmi baynu nahay noole yaro daciifa oo qalbi yaro daciifiya ku jiro mararka qaar xaaladaha emotionka ah sida kelmad aadan istaahilin ama aan kuu qalmayn ama aadan qofka ka filanayn oo lagugu yidhi ayaa sababi kara maalin iska dhan in jawigu uu kaa xumaado ama ay noloshu kula fool xumaato xanuunkaas iyo diiqadaas aad dareemaysaana ismooganaysiinta kuma baaba'ayaan inaad indhaha ka laabato dhibtuna waa inaad u ogolaatay inay kugu xididaysato oo ay ku saldhigato geedka curdinkaa jaristiisa iyo ka gaamuray ee adag ee jiridda lihina way kala adag yihiin oo mid walba dadaalka kaaga baxaya waad garanaysaa markaa mushkiladaha nafsiga ahi taas ku haysa uun kuma ekaanayaan markaad isku daawato ee way tarmayaan oo taasi kuwo kale oo badan ayay ku dhalaysaa waa mahuraan markaa in aadan ismooganaysiin dhibaatooyinka nafsi ahaan aad u dareemaysaa caadada sagaalaad ee u dambaysa ee ay tahay inaad iska ilaaliso si aad badqabka caqligaaga u ilaashataa waa inaadan joojinin waxbarashada joogtada ah maaha waxbarashada dugsiyada uun ee maalin kasta wax kasta oo aad la kulanto ama aad aragto ama aad maqashaa cashar ayay ku barayaan xataa barnaamijkani waa waxbarasho youtube-ka inaad ku jirtaa waa waxbarasho meel kasta oo macluumaad ay kaa soo gaadhayaan waa waxbarasho haddii aadan caqligaaga ku kobcin maalinba inaad wax kugu cusub ama aad maqashay daraasayso tagtadii ayuu la noolaanayaa sidaasna horumar badan kuma samaynaysid aakhirkana waxaad gaadhaysaa marxalad deegaanka aad joogto iyo dadka aad la joogto aad la jaanqaadi kari waayeyso oo aad ula wacyi noqon waayeyso oo sida odayada 80 jirada ahi maanta ay u arkaan moobiladan smartphone-ka iyo teknolojiyadan cusub oo kale adigoo weli aan gaboobin aad ka dhex noqonayso bulshadaada waxaan filayaa barnaamijkan inuu wuxuun ka anfacay wasalaamu calaykum